السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعلى وناكسن أصحابتي مeel kastoo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga. Maanta barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa sida alaababa nooga barateen waaxda shaqaalaha ama human resources. Dadka intooda badan waxay u haystaan in waaxda shaqaalaha ay tahay hal qof ama hal shaqo kaliya. laakiin waaxda shaqaalaha ma ahan hal qof ama hal shaqo kaliya, balse waa waax ka kooban shaqooyin kala duwan oo aan wax ka barano heerarka ugu muhiimsan ee shaqooyinka waaxda shaqaalaha ama human resource-ga. Heerka koowaad ama bilowga waa HR assistant. Tani waa heerka ugu fudud ee lagu bilaabo waaxda shaqaalaha. Kani wuxuu ka caawiyaa waraaqadaha shaqaalaha, diiwaangelinta iyo diyaarinta balamada. Heerka labaad ayaa wuxuu yahay HR coordinator. HR coordinator-ka iyada ama isaga waxay habeeyaan tababarada shaqaalaha, wareysiyada iyo jadwalka shaqada. Sidoo kale heerka saddexaad waa HR generalist. HR generalist wuxuu qabtaa shaqooyin kala duwan sida shaqaale qorida, tababarka, xalinta dhibaatooyinka shaqada iyo ilaalinta shuruucda shaqada. Shaqaale raadiye ayaa jira ama loo yaqaan recruiter. Qofkan wuxuu raadiyaa shaqaale cusub oo ku habboon shirkadda. Wuxuu qaadaa wareysiyada, wuxuuna doortaa dadka ugu fiican. Waxaa jira HR manager, waa levelka ugu sareeya. Muxuu qabtaa HR manager markaa? Isaga waa hogaamiyaha waaxda HR-ta ama waaxda shaqaalaha. Wuxuu qaataa go'aanada waaweyn. Wuxuu kormeeraa shaqada dhammaan kooxda HR. Haddii aad rabto inaad ka shaqeyso HR ama waaxda shaqaalaha, waxaan kula talinayaa inaad ka bilowdo heerka hoose sida HR assistant. Kadib waxaad koray u qaadi kartaa xirfadaha shaqo si aad u noqoto HR manager. HR-ta ama waaxda shaqaalaha waa xirfad leh mustaqbal wanaagsan, horumar joogto ah iyo shaqo sharaf. Fadlan haddii aad ka heshay barnaamijkeena, like saar, comment garee si aan ugu kulano barnaamijkeena xiga hadduu Allah idmo. Mahadsanidin taageeradiina.